madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Engineer Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici iyo gudoomiyaha xisbul muxaafidka kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi iyo mas'uuliyiin kala duwan ayaa maanta Boorama waxay kaga qayb galeen munaasabad xisbiga kulmiye uu ku soo bandhigay musharaxiinta xildhibaanimo ee golaha deegaanka ee degmada Boorama gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Nowdal Professor Aadan Diiriye Dixood oo madashan ugu horeen ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in musharaxiintan xisbiga kulmiye maanta uu soo bandhigay ee ugu qayb galaya doorashada golaha deegaanka ee degmada Boorama ay yihiin musharaxiin xul ah oo ay siyaabo kala duwan u soo xuleen wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Somaliland Maxamuud Bare Garaad oo isna madashan hadallo ka jeediyay ayaa waxa uu taageeray musharaxiintan xildhibaanimo ee golaha deegaanka xisbiga kulmiye isugu soo taagay waxa uu muujiyay inay wax badan bedeli doonaan gudoomiyaha xisbiga kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi oo isna hadallo madashan ka jeediyay ayaa waxa uu dhiirigeliyay musharaxiintan xisbiga kulmiye ee maanta la soo bandhigay Soomaaliya waxa ugu magacaabay siyaasadda xadxaadka wuxuu dhintay isagoo guriga lagu magacaabay inta aan lahayn markii uu calaamad shirka نمو صوم هذا الفقرة فقط والله ما كان عادي لبسان لما حتى أعرف أنه كوشناني هو شاقة يقول سكرة أما عرض هذا يقول كذا وأنا دون إني عرض هذا ضيعته حتى أعرف دون الإسلام وأنا كان أما الله يعرف إنه سوف يكسي حيو وأنا تنجو أروح الله حصور دون الحكم ما مقشر الله يقول جريء لا يسأل لا عرضي بيتي عرض كثير عين ما يعتبر الشيء ولو جرى بريد هبلايو سياسة بانك باب تيمو غير واحد سين بلدي قولي يوم تسبوتي بلدي فكان هذا أي فلسفة أهل يدرسوا وتطبقونها حصلوا قرآن madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland Engineer Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo gabagabadii hadallo madashan ka jeediyay ayaa waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ah waxaana hadalladiisa kamid ahaa عسير باهي طريقة حسن لمطلوب هذه كوكا على بعض الدلال والحساب إلى الأساسي إذا كان كتب إسرائيل خلفية وحصوق فيه وحبا ألف فهيه ودولي ألف فهيه ربطنا لو سوء عمانه وإن فرق عليه وقضائي إن فرق خطي إن فرق قرار بتسرينه وشاهد كوالا عالي بطل طالبينه إن وحي مرضى لقاسيه إن الإطلاع لو عاوزان إن الدورتان والعقيلة سيسان فبيعرف كنتم لين الخارجي وأنا بحال من تفسير أصلا بسشة معنا بالشوط حش كل هذين طبيعي كثير وكان لهم المعلومات والشرعين هذا هو اللي يتفسير إيه كتبنا المنطقة يعقوم يودعون وطريقة يجب أن يمنع أن عاوزان هي كل عصابة si kastaba haatee Boorama iyo gobolada kala duwan ee Somaliland waxa ka socda soo bandhigista musharaxiinta xildhibaanimo ee golayaasha deegaanka Cabdi Fataax Axmed Hadwanaag News magaalada Boorama